haddaba shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa iyaguna aragtiyo kala duwan ka dhiibtay xiisadda siyaasadeed ee hadda wadanka ka jirta hadalkii ka soo yeeray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo jawaabtii ay ka bixisay dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba waa kan Maxamed Xuseen Daacad wariyaha RTN ee magaalada Muqdisho oo microfoonka isagu la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho oo aragtiyadooda dhiibanaya. argal wanaagsan farxiyo Cabdalla Muumin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta si weyn looga hadalhayaa khilaaf la sheegay inuu xilligan si weyn uga dhex taagan yahay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalkan soo maray waxaana khilaafkaas oo ka dhashay isjiid dheer oo shalay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo kan beledweynaba ay kala kulmeen madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud marka hadal xalay oo jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn maanta dadku ay u hadalhayaan waxaana hadalkaasi ka soo yeeray Sheekh Shariif xalay ka jawaabay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maariye oo sheegay in hadalka ka soo baxay Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuusan xilligan uusan habboonayn haddaba si dadka aan u weydiin aragtidooda waxaan maanta mikrofoonka RTN la dhex qaadnay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxayna ka hadleen dareenkooda ku aadan khilaafka sii kordhaya ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee xilligan talada haya iyo madaxdii hore Soomaaliya horta dadka khilaafaadka isku haya midna waa mid madaxda dalka ka soo noqday dadka hadda khilaafkooda socdo midna waa mid hadda madaxda hayo dalka haya labadii midna ninkii shalay wanaagga dalka ku maamulayay maanta wuu garan waayay wax walba ixtiraam bi Soomaaliya isku leedahay ka hadda xilka hayana ee ka siyaasiga ixtiraam bu ku leeyahay dadka shacabka waxay arkayaan inaan madaxda dalka is ixtiraamay haddaan madaxda is ixtiraamayn shacabka ixtiraam ka iman karaa su'aashu waa maya Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta waxay u baahan tahay ciidan awood ciidan oo uu dalku ku dhismo haddii doonto 22 sano siyaad baro oo kale haba hayo dalka macnaha waxay u baahan tahay maanta Soomaaliya waxa la yiri waxay leedahay il baqda il xishood man haweeye waa doctor maamul goboleedyada dalka ka jira maamul goboleedyada dalka ka jira maanta ma aaminsana inuu dawlad federaal jirto ma yaadii isku ma waayaan ay wada hadli waayaan culays kale si leedahay culays si sayda waay laakiin waxa ka wanaagsan in wada hadal mi isku yimaadaan oo la wada hadlo lagu dhameeyo maartay wada hadal lagu dhameeyo ay wada fadhiistaan caalam maarifka dawladda saas ay aniga ila taxal lagu xalin karaa wixii ma kar ilaahay ogtaas waa karaa laakiin taas ugu fudud waxaan ku baaqaa inay dawladda iyo mucaaradku miis isku yimaadaan wada hadlaan ummadda yani mataqaanaa yani Soomaalida oo masaakiinta oo dayarta oo iska tabaalaysan ay doctor fiiriyaan labadooda inuu waa weyn oo madaxweynayaal horaan aan dhahayo ayaa TV-ga waxay ka leeyihiin waxaan ku nahay dawladda inaan raacdayno maalintii koow madaxweynenimo loo doorto ninka ummadda dhan la weer oo jeceshahay say u jeceshahay oo kama fahanto laakiin nimanka waaweyn waxay leeyihiin dawladdan ageenistii ku nahay oo duulaanaan ku nahay yacni siyaasadda halkaa la gaartay waa mid qaldan dawlad maalintii la dhisay la yidhi annaga mucaaradaan nahay lagu bilaabay Nairobi la aaday ee haddana la soo bixay dawladda carbeed inta lacag laga soo qaato labadan nin waaweyn dawlad haday dawladnimo ay yaqaaniin dawladdu amarkii dhiibtay shirkaas uu qabanayo calaamasaarka Kismaayo ayay waxay dhihi lahaayeen waa ka joognimo aadayno way tageen dawlad ma jirtay ka wadan shacbigu ha fahmo hadoo warkaa dhageysto waxa waaye dawladda iyo mucaaradku inay heshiiyaan waa xal kaliya oo isku tanaasulaan shacabkuna loo dulqaato taasaan oran karaa aniga fikir ahaankayga waxaana leeyahay mucaaradka waxa waaye hadda inta 4 sano waqtigii qofka dawladda hadda waa gabagabo waxa fiican in loo dulqaato lana tanaasul waayo mucaarad fara badan wax uu keenayo faa'iido u leeyahay ma jirto dawladda dhisan inuu burburiyana kole hadda dawladdan maadaama waddankeenu weli dawlad lahayn mucaarad fara badan iyo wax faa'iido leh ma marka mucaaradku waddanku markuu mucaarad yeelan karo markuu dawladda dhisan tahay taasana oran kara waxaana leeyahay in isku tanaasulo dawladda iyo mucaaradku inay siiyaan taas xalka kaliya la gaari karo noqon kara taas waa